munaasabadan lagu soo dhaweynayo waftiga sare ee ka socda maamul goboleedka Bakool sare uu hogaaminayo madaxweynahooda Axmed Sheekh Maxamed iyo ugaas Xuseen ugaas Cabdi oo muddooyinkan ku sugnaa Puntland. munaasabadan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay maamulka rugta ganacsiga warshadaha Puntland iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland, golaha baarlamaanka, maamulka gobolka, ganacsato iyo marti sharaf kale ayaa lagu qabtay magaalada Tanboosaaso. gudoomiyaha rugta ganacsiga warshadaha Puntland Maxamuud Caydid iyo gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhado ayaa ugu horeyn xusay. waxaan leeyahay soo dhawaada faatimaadeen mulkiini waxaa u timaadeen shacabkiini waxaad la kulanteen dowladdiinii anigoo ku hadlay magaca gobolka Bari iyo bulshadiisa madaxweyne adigii waftiga hogaaminaysa ugaas ugu horeeya inaan muddada aad joogtaan Puntland waxaan leeyahay magaca shacabka gobolka Bari ku hadla ku soo dhawaada gobolka Bari. waxaan soo dhaweynaynaa si laab furan oo gacmo furan oo dalkooda ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha iyo ugaaska iyo waftiga la socday. maanta waxa weeye anaga farxad bay noo tahay maanta maxay maalintii aan ka soo degnay gaalkacyo ilaa iyo maanta waxa weeye dhulkana lama dhigin. taasna waa mid ay ka sugeynay simadii iyo shacabkii iyo dawladii Puntland waa mid aan ku fadhinay halka haddaan nimidna waan aragnay. maamul goboleedka Bakool sare ayaa ka shaqeeya degmooyinka Aato, Yeed iyo Ceelbarde. wasiirka dastuurka arrimaha federaalka Puntland Cali Ciise Og ayaa sheegay sababta ay Puntland u taageerayso maamulka Bakool sare. haddii dastuurka sidoo ahaa wax laga bedelay waxay tagaysaa on qolo waliba meeshii degan tahay marka inay nidaamsato haddii nidaamsatana dadkii ummadda kale ka naxdaa waa inay ku taageerto. madaxweynaha Bakool sare Axmed Sheekh Maxamed ayaa ka hadlay ujeedada safarkooda gobolka Bari iyo guud ahaan Puntland. runtii waxaa iyaduna xusid kala mudan idinkuna mahadcelinaynaa sida weyn oo qiimaha iyo qaayaha ee nalagu soo dhaweeyay Puntland oo dhan khaasatan magaala madaxda gobolka Bari. waxaan idinku nimid booqasho walaaltinimo oo ehelnimo madaxweynaha naga ka codsanay inaan rabno inaan dhex tagno shacbiga Puntland oo yisimadu hormuud u yihiin ganacsatadu ku jirto oo aan duruufta jirtay iyo xaaladda jirtay ee Bakool sare la wadaagno la sheerga. arrinta Bakool sare waxay ku timid kacdoon bulsho oo dhammaan dadka halkaan jooga dal iyo dibadba saldhig u ahaa tay ku dhisantay taas ay ahayd. Ahmed Sham, Hon Cable TV, Boosaaso.